Dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed aad iyo aad baan idin salaameynaa. Magacaygu waa Dr. Axmed. Halkan waxaynu iigu soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan kambanigeena Forever Living Product. Warbixinteenu insha Allah 3 qaybood bay ku saleysnaan doontaa. 3daa qaybood oo ah inaan wax yar oo kooban iniga taabano kambanigan historygiisa iyo taariikhdiisa oo profileka kambaniga ah, goortii la aasaasay, halkii laga aasaasay iyo ciddii aasaastay iyo sababtii loo aasaasay. Kambanigu waxyaabaadka uu soo saaro ee productgiisa ka mid ah iyo qaybta ugu dambeysa oo ah nidaamka marketinga ee kambanigu uu shaqeeyo. Haddaba haddaynu ku horeyno kambaniga profilkiisa iyo taariikhdiisa, kambanigan waxaa la yidhaahdaa Forever Living Product. Forever Living Product waxaa la aasaasay 1978 muddo dhowr iyo 40 sano buu jiraa. Waxaa aasaasay ninkan la yidhaahdo halka sawirkan iiga muuqato Regas. Sababtii loo aasaasayna wuxuu bay ahayd kambanigu sidee buu alaabteenuna caalamka oo dhan ay u gaadhaa, dadka alaabta gaarsiinayana aynu hantiilayaal u noqon karaan inaynu uga dhigi karnaa. Sababtaas wuxuu bay ahayd sidii loo aasaasay kambanigu. Waqtiga la aasaasay ilaa maanta koritaan dhaqaale oo badan ayuu soo sameynayay. Ku dhawaad ilaa 160 wadan ayuu ka shaqeeyaa. Bulsho badan oo caalamka ka midina way ka howlgashaa. 160 wadanna wuxuu ku kala gaadhay wax kala ma ahayn, kolba dalku u dhow yahay ayuunbuu uga sii gudbayay. Innaka wuxuu inooga yimid dalalkan khaliijka ee Middle East-ga iyo khaliijka waxa uu yimid kambanigu 1999. Annual iibka ay sameeyaan Bermont waxa lagu qiyaasaa 33 milyan. Waa kambaniga ugu weyn ee nutritional supplementiga amba cunto caawiyaasha waxa la yiraahdo quruxda iyo caafimaadka labadaba u roon soo saara khaliijka ku yaala. Halkan waa xarumaadka aynu ku leenahay khaliijka sida Cumaan, Sacuudiga, Qatar, Jordan, Bahrain intaba oo xarumo badan aynu ku leenahay. Xarunteena ugu weyn ay ku taalo Dubai. Kambaniga qofka dadaal fiican sameeyo wuxuu kambanigu siiyaa abaalmarimo. Haddaba halkaas wuxuu bay ahayd taariikh yar oo ku kooban kambaniga oo taariikh yar oo kooban oo kambaniga inaga siineynay. Iminkana waxaynu eegi doonaa kambanigu waxyaabaadka uu soo saaro. Kambanigu wuxuu soo saaro alaabaadka supplementiga amba nutritionka, caafimaadka iyo qurxinta. Alaabta ugu badan waxa laga sameeyaa geedka dacarta. Waqtiga geedka dacartu baxayo wax laguma buufiyo dedejiyo waqtigeedii. Sidoo kale cayayaanka ka dila laguma buufiyo, iyadoo dabiici ayay baxdaa. Waana kambaniga ugu weyn ee la beeraha ugu badan laga soo saaro geedka dacarta. Haddaba alaabteena aynu soo saarno 3 qaybood baa loo qaybiyaa. 3daa qaybood oo kala ah qaybta caafimaadka, qaybta miisaanka iyo qaybta qurxinta. Qaybta caafimaadka oo ah qaybaadka xanuunada guud sida macaankii, dhiig karkii, babaasiirtii, adoo xanuunadii guud oo dhan kulli. Tan imika inii muuqato aloe vera gel baa la yidhaahdaa. Waa sharaabka kambaniga oo qaybaadka sharaabaadka ayay ka mid yihiin oo wuxuu u wanaagsan yahay urku jirta sida gaastirida, calool istaaga, babaasiirta. waxyaabaadkaas oo dhan buu fiican yahay oo intan dheefshiidka ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay, waxtar badanna oo caafimaadna uu leeyahay. Qaybta labaad waxa weeyaan waa qaybta miisaanka oo ah qaybta miisaanka lagu jaro oo iyaduna 2 qaybood u kala baxaysa. Qaybta miisaanka lagu kordhinayo iyo qaybta miisaanka lagu yareynayo oo dadku isku mid maaha. Qofna wuxuu doonayaa inuu miisaankiisa yareeyo, qofna wuxuu doonayaa inuu miisaankiisa kordhiyo. Marka kii miisaankiisa yareynayay inta qaybta caloosha kaliya lagu jarayo oo qofka doonaya inuu caloosha kaliya jaro iyo qofka doonaya sidoo kale inuu miisaan fiican jirkiisa oo dhan ka rido 10 kiilo, 8 kiilo, 15 kiilo kolba intay noqotoba. Qaybta ugu dambeysa uu kambanigu soo saaro waa qaybta nafaqeynta maqaarka oo ah amba dhibaatooyinka caafimaad ee maqaarka ha noqoto amba qurxintaba ha noqoto. Dadka finanka leh, haaraha leh, madmadowga leh, qofkaan intaaba lahayna doonaya inuu skinkiisa iyo maqaarkiisa sii qurxiyo oo nutrition ahaan iyo qurux ahaan buu sii siyaadiyo. Sidoo kale waxaa jirta alaabaadkii Colgate baa ka mid ah, saamuunihii baa ka mid ah, shaambooyadii baa ka mid ah oo dadka timuhu ka jajabka leh, dadka timuhu ka daadanayaan. Waxyaabaadkaas oo dhan aad iyo aad ugu fiican. Marka waxa weeyaan kambanigu wuxuu soo saaro waa personal uses, waxyaabaadkan maalin walba isticmaalno oo iyo sidoo kale nafaqeeyayaashii iyo borotiinadii kuwii jimicsiga dadka doonaya inay jimicsiga sameeyaan, exercise sameeyaan, qofka doonaya inuu caafimaadkiisa kor u qaado intiiba oo wuxuu wada nutrition iyo nafaqeeyayaal ay yihiin.
marka intaas ayaa kambaniga loo qaybiyaa. halkaas wuxun bay ahayd taariikh yaroo kooban oo aynu kambaniga kaga hadlaynay iyo alaabaadka uu soo saaro oo qeybtii labaada. qeybta saddexaad waxa weeyaan waa nidaamka uu kambanigu shaqeeyo amba fursadiisa ganacsi ee kambanigan waa mid nooceeya. haddaan inii soo koobo, guud ahaan kambanigu wuxuu ku shaqeeya waa nidaamka marketinga amba suuqgeynta. marketing ahaan buu kambaniga lagaga shaqeeya, fursadiisuna ay tahay. marka marketinga berigii hore si baynu naqaanay, imikana waa si kale weeyaan. berigii hore waxaynu naqaanay marketingku inaad kambani aad u tagto, alaabta uu leeyahay kambanigaasi uu kuu dhiibo, deetana alaabta adigu aad suuqgeyn u samayso, keliga aad waxii wado, keliga aad suuqi geliso oo aad keliga un aad wado, deetana aad magaalada aad ku iibiso. deetana tii baa layidhi warniyo how taasi way adag tahay, kambanigiina alaabo badan kagama soconayaan, sidoo kalena qofkii marketinga ahay suuqgeynta lacag fiican kuma helayo, sidaas si ka duwan haynuu dhigno. deetana waxa la sameeyey waxa loo yaqaano network marketing. network marketing wax kale maaha, waxa weeyaan waa nidaamkii suuqgeynta oo lagu yidhi adiguna marketing samee, halkii aad keliga ka samaysan lahayd ood keliga un wuxuun wadi lahaydna tiim kale wax kula suuqgeeya samayso. tiimkaasina iyagoo sidooda marketing u ahoo sidooda u shaqaysanaya, iyagana haddana percentage baa lagugu siinaya oo tiimkaas saasuu socon doonaa. oo hadhow halkii magaalada aad joogto oo keliya aad marketingkeeda suuqgeynteeda kaga xisaabtamaysay, tiimkan kale waxaa laga yaabaa inuu gobol kale iyo magaalo kale iyo dal kaleba ay tagaan, halkaana uu isla kambanigu ay kasii shaqeeyaan, deetana marketingkaagu saa kusii siyaado. waayo waxaynu ogsoonahay wuxuu hal qof iibiyo iyo waxay 10 qof iibiyaan inayna isku mid ahayn, waxay 10 qof iibiyaan iyo waxay 100 qof iibiyaan ayna isku mid ahayn. intaasba tiimkaaga noqon doonaan, qof walbaabana sidiisa gaarka ayuu sidiisa marketing usii yeelan doonaa. haddaan sii faahfaahiyo waxa weeyaan kambaniga maxaynu ka helaynaa guud ahaan, laakiin qaacidadu waa iska sidaa weeyaan. kambaniga laba faa'iido ayuu leeyahay, labadaas oo ah alaabtaynu soo sheegaynay ee iminka aynu kasoo warramaynay ee productiga ah, waxaa la suuq geynaya waa alaabta uu kambanigu soo saarayo. alaabta inaad retail ku iibiso faa'iidaad ka helaysaa. qeybta labaadna waa taa tiimka iyo dadka marketingka ee kula shaqeynaya. haddaba halkuu lacagtu kambaniga ay naga soo gashaa 3 meelood bay naga soo gashaa. 3daa meelood mid waa tafaariiq oo alaabtii inaad sii iibiso. anigu waxaan u baahanay colgate qof aad ka iibiso aad alaabtii sii iibiso, taa waxaa lagu sameeyaa 200 ilaa 500 oo dollar ayaa lagu sameeyaa bishii. ta kalena waxa weeyaan waa business leader, inaad team samaysato oo wax kula suuq geeyo marketing si alaabtan la suuq geynaya ay iibkeedu u sii siyaado. tiimkan micnaheedu wax kale maaha, waxa weeyaan in alaabtaada nidaamkaaga suuqgeyneed uu sii ballaadho. qeybta saddexaad ee ugu dambeysa waa abaalmarimaha kambaniga oo dadka dadaalka badan sameeya la sameeya. marka taas waa xilliga dambe, laakiin labadaas ayaanu keena qusaysayna ka. sidee buu kambanigu wax ku iibiyaa? wuxuu kambanigu wax ku iibiyaa waxa weeyaan wax la yidhaahdo cc buu isticmaalaa. cc-gu wax kale maaha, kambanigu 160 wadan buu ka shaqeeyaa. 160ka wadan xarumo ayuu ku leeyahay. marka dal walbaaba lacag gaar u isticmaalaa. qaar baa dirham isticmaalaya, qaar baa dollar isticmaalaya, qaar baa shilin isticmaalaya. marka intaas buu yidhi waar ka waran haddii aynu ninku qaacido guud aynu isticmaalno oo dadka, laakiin marka la bedelo hadhow lacag u dhigmaysa. deetana waxaasuu isticmaalay wax la yidhaahdo cc. cc-guna wax kale maahay, waa case credit oo lacag ahaan u dhigmaysa. iminka kaasoo kale waxaa inaga muuqda 0.029 cc, waa diyo darankii kalankilooyinka la marsanayay. waraaq baa kugu taala cc ahaan, waxaasuu dhigmaya lacag ahaan, saasuu dhigmaya. foom baad qaadan doontaa, foomkaasoo qiimayaashoo dhani ay kugu yaalaan. haddaba sideynu ku bilaabi karnaa kambanigii? midi waa retail oo waxa weeyaan dee taa tafaariiqdo taa ku noqon maayo, waxba faahfaahin maayo. haddaba tan tiimka ayaan doonaya inaan sii faahfaahiyo. horta kambaniga waxaad ku bilaabaysaa dee dibadaad ka joognaa iminka inuu horta gudaha usoo galno isdiiwaangelino. markaynu isdiiwaangelino kambaniga waxa lacagoyna laga qaadaya isdiiwaangelintu waa free registration, marka waxa lacagoyna laga qaadaya ma jirto. waxayna la siin doonaa id card, waxayna la siin doonaa system aynu ku shaqaysano oo page oo database oo wixii aynu iibinay nidaamkoo dhan ay gelayaan, oo online-ka aad kala soconayso wixii aad iibsay iyo nidaamkoo dhan siduu yahay. marka intayna loo sameeyay si aynu saa isku diiwaangelino alaabtaynu iibinayno aynu iibsanayno, waxa weeyaan marketinga berigii hore waxaynu naqaanay cid baa loo shaqayn jiray. kan adiga ayaa shaqaysanaya, adigoo marketingkiya ayaa system ganacsi kambaniga ka dhex samaysanaysa. alaabta iibkaaga ugu horeeya aad suuqgeynta u samaynayso waxaa lagaa deynayaa oo discount lagu sameynaya 15%. iibka 15% marka lagu sameeyo, iibkaagaasi markuu gaadho muddada uu gaadho 430,
430 markuu gaaro dhiskoonkaagii ahaa 15 wuu isbedelayaayo wuxuu isku bedelayaa boqolkiiba 35. boqolkiiba 35 markuu dhiskoonka aad hesho wuxuu ku leeyahay kambanigu niyo haddaba waxaad samaysaa isbadi oo iib intan kasii badan samee. si aad taa u samayso tiim samayso. tiimkaas waxa weeyaan waa tiim kula shaqeeya oo hadhow iyaguna waxa iibiyaan, iyaguna commissionkooda iyo nidaamkooda ganacsi helaya, adiguna sidaada gaarka aad commission uu kambanigu uu kaa siinayo. waxaad kambaniga u sheegtay 7 qof 8 qof 5 qof tusaale ahaan kasoo qaad. 5tii qof markaad u sheegtay kambanigii bay yimaadeen, warbixintii bay qaateen, way ku qanceen, waxay dhahdeen wallahi kambaniga waa kambani fiican, waanu ka shaqaysanaynaa. deetana markay ka shaqaysteen marketingkoodii iyo nidaamkoodii bilaabeen 430kii iibkaha ayay sameeyeen. markay sameeyeen way iska tegeen dad intay iib sameeyeen baxay noqdeen. marka kambanigu wuxuu ku leeyahay haddaba labadeena isku soo harnay, mar haddaad 5 qof amba 7 qof amba 8 qof adigu aad keentay, anigu iibkii dadkan iga iibsadeen ayaan adiga commission kaa siinay. commissionkaasi oo ah iyagu markuu qofku soo galo waxaan nidhi boqolkiiba 15 ayuu discount leeyahay. qofku markuu 430 iibiyo oo adiga iyo imika ku jira boqolkiiba 15 baad leedahay. marka labada la kala gooyo waa 20%. 20% waa lacag gaaraysa 90 ilaa 95 doolar. haddaad 5 qof keentay micnaheedu bisha waxa weeyaan 90 oo iibkaa sameeyey. dadkan waxaan uga jeedaan waa dad iib sameynaya. hadday waxba sameyn waayeen dee commission ma jiro weeyaan. waxa weeyaan 90 times 5 qof waa lagu dhuftay 5 qof waa 450 ayna ku jiraan alaabtaas sii tafaariiqaysay. dadkan way sii socon doonaan, tiimku sii kordhaya. 5tii qof aad keentay amba 7dii qof aad keentay ganacsiga baa la fahansiinaya, nidaamkii baa la fahansiinaya. waxa la leeyahay war fadhiga ka kaco, hawsha shaqada bilaabo oo sii siyaadiya. iyaguna tiimkoodii bay sii samaynay. waa nidaam marketing oo isdaba soconaya weeyaan. kadib halkaana waxa supervisor baad noqonaysaa. alaabtii 35kii discoonka wuu isbedelayaa 38 discoon ayaad helaysaa. mar walbana alaabtu mar walbo levelkaagu sii fiicnaado alaabtuna discoon fiican ayaad ku helaysaa. halkaa commission ahaan waxaa lagu qaataa $200 ilaa $700. waxaad haddana levelka saddexaad waxa weeyaan waa assistant manager. tiimkan baa sii soconaya. waxa weeyaan boqolkiiba 43 alaabta waxaa lagaa deynayaa boqolkiiba 43 discount aad ka haysataa. waxa weeyaan waa $700 ilaa $1400 ayaa halkaana lagu faa'iidaa oo inay ku jiraan alaabtii aad sii tafaariiqinaysay adigu sidaada gaarka aad u iibinaysay. manager ayaad haddana levelka afraad waa manager. manager micnihiisu waxa weeyaan wuu ka duwan yahay kuwii hore. dhowr shay buu kaga duwan yahay. horta alaabta 50% baa discount lagu sameynaya, waa boqolkiiba 48 discount ayaad helaysaa. lacag ahaan halkan commission ahaan waxaa systemka ee marketingka suuqgeynta waxaa commission ahaan halkan lagu qaataa $1600 ilaa $2700 ayaad ku qaadanaysaa. oo ayna ku jirin alaabtii tafaariiqdu iyadu waa systemka ordinary-ga maalin walba iska socda weeyaan. halkan waxaa lagu helaa nidaamkan aan ka waramaya waa nidaam ganacsi oo marketing oo ay ag socoto dalxiisyo, ag socoto waxa la yiraahdo German bonus oo ah kambaniga inuu yiraahdo aniga faa'iidadii ii soo xarootay waxaan ka siinaya. inta markaa dalxiisyada German bonuska waxa la yiraahdo company sharinga waxyaabaadka xaq laga helo waa managerkan weeyaan. wixii inta ka dambeeya tiimkaagu sidii managerkan u noqon lahaayeen ayuun baad ku dadaalaysaa. tusaale ahaan haddaad 2 manager soo saarto wax loo yaqaano senior manager weeyaan waa 3 ilaa 5 kun $5,000 waa lacag badan weeyaan. waa markaa kuwan traininada dambe ayaa dadka ku siinaa waa lacag inta ka sii badan weeyaan. marka kuwan hore uga sii soconaya waxa weeyaan waa trainingka lagu qaata markuu kambaniga qofku kusoo biiro. waxa ag socda sida xalka inaga muuqato dalxiisyo waxayna ka dalxiiskaas oo ah dalxiisyo kambanigu sanadkii hal mar qabto. waxa nidaam ganacsi oo ay ag socoto qorshaha gaariga oo 3 level. qorshaha koobaad oo $300 oo lacagtaada dul socon doonta marka aad ku guuleysato, $400 oo dul socon doonta, $600 oo dul socon doonta nidaamkaaga ganacsi. waxa la yiraahdo German bonus baa jira. German bonus wax kala ma aha. waxa weeyaan kambaniga faa'iidada sanadka u soo xarooto yiraahdo dadkii dadaalka fiican sameeyay, marketingka fiican sameeyay ayaan abaalmarin ahaan wax ku soo celinaya. lacagta waxa ugu hooseysa $3,000 ilaa $1 milyan laga gaarayo. waa German bonus wax la yiraahdo. waa in ka tiimamkeena Sacuudiga kuwan 8,000 3,000 qof iyo tamartii iyo dadaalkii. tiimkeena waa tiimka Soomaalida ugu horeeya weeyaan. ma sha Allah. waxaa sanadkii
2015kii ayay dalxiiskii koowaad ka qayb galeen. 2016kii waxay ku guuleysteen 25,000 25,000 markay arkeen haddana jeega kasii badan bay arkeen. warniyo kuwana sidaad ku gaadheen waxaa loo sheegay oo dadkii jeegaga badan watay ay u sheegeen in haddii 25,000 tiimkooda 6 qof oo kamid ay ku guuleystaan iyagu jeeg kasii badan ay heli doonaan. kadib deetana 2017kii oo Dubai lagu qabtay waxay ku guuleysteen 349,000 ayay ku guuleysteen. sanadkan inkaynu ku jirno Mareykanka lagu qabtay waxay ku guuleysteen 381,000 sida xagga inaga muuqata. ninkan waxaa la yidhahdaa Rolf, waa nin Germany 1.3 milyan ayuu ku guuleystay. waxaan markaa ma aha commission ahaan, waxa weeyaan waa lacag ah promotion, waa abaalmarimo. ninkan imika wuxuu ku jiraa 23 years old ayuu ku jiraa, daadiisu waxay gaadhaysaa 23 intuu kambaniga ku jiro. marka 23ka dadaal badan iyo juhdi badan iyo tamar badan buu geliyey, maaha calashaan wax iska soo baxbaxaya, maaha khiyaali. research badan iyo wax badan aad ku samayn kartaan. marka nidaamkan saas ayuu qofkaas ninkan Rolf uu ku guuleystay. haddaba kambanigu markaa wuxuuna siinaya waxa weeye waa opportunity-ga, fursadaasuna siinaya, maaha fursad loo kala, waa fursad caalamiya taasoo nolosheena iyo dadkeena iyo faamiliyadeena baynu ku bedeli karno. qofkii hadaf leh kambanigu wuxuu ka caawinaya inuu hadafkiisa gaadho. nidaamkan waa nidaam marketing oo isbadina, oo alaabtaadu meelo badan oo caalamka ka mid ah. awal hore waxaa lagu fikiri jiray inuu ganacsigaagu hal meelun taagnaado, halkaa meelun xaafadaasun deetana aad sugtadu qofka albaabka kaaga soo gelaya. tiibaa laga baxay, tiibaa la yidhi waar ganacsigaaga badi. 160 wadanba soomaalida qof walbaaba meel buu joogaa. soomaalideena dadkeena qof walba qof waa meel inoo jooga. dadkaas ayaynu u sheegaynaa hadduu Jarmalka joogo kambaniga qaybta Jarmalku ka shaqeyn doona waa marketing iyo suuqgeyn marka Jarmalka ku tagtay. haddaba kambanigii sideen ugu soo biiri karnaa? kambanigii waxaan ku bilaabi karnaa haddaba ganacsigii kow inay isdiiwaangelino, waa free registration, orderkii samaysano, marketingkii bilowno. marka intaas samayno deetana tiimkii aynu bilowno. aad baad mahadsantihiin. wixii aad fahmi weydaan ay su-aalaha waadna soo weydiin doontaan. aad baan idin soo dhaweynaynaa. kusoo dhaweeda kambaniga Forever Living Product. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.